نبي نوحي صلوات ربي والسلام عليه هلاك يهوك يآفو وحي أصقناتي روح بين شيء والشيكين يا بين بوشيغيا سي وددك uga qosliyo nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam saddex goor buu ku celiyay halaag buu leeyahay waa dhamaad imisa shaqo ka dhigatay inay dadka been ugu maadeeyaan inay majaalista ku maaweeliyaan imisa mawaaqic u furatay imisa website u furatay imisa qolol u furatay imisa muxuu ahay social media been iyo kadib dadka ku maaweelinaysa calashaan in lagu qoslo ama dad dhageysta ay helaan ya dad badan oo ku xidhma inay helaan calashaan beenta sheeg xalladee sheekee nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam halaag iyo weyl bay leeyihiin rasuulku sallallahu alayhi wasallam saas daradeed beenta iska tir muumin baa tahay muslim baa tahay الله بات رميسان تاهي آخرات أسعوتا ربك بات لكل بدونتا قبري بات قلي دونتا وحن أردنا والإساقد بإيمان دونا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد كلمة كاسو بحضة ديوان كي كتالا ما ننت قيامتنا اللغو صهر لك دونا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ديوان كاقي آخر بين تفكتا مركز ما ننت قيامتنا أتكتو حسابي لغو يدعو حاجات قلي دونتا مالنت قيامته ما سياسه iyo kursi baa wax ku tari doona ma ganacsi baa ku badbaadin doona ma maaweele iyo sheeka ku badbaadin doonta iyo dad inaad ka qosliso ittaqillah muumin baa tahay ilaahi ka baq diintaada ilaasho aakhiradaada ilaasho nabigeena salawaatu rabbi wa salaamu alayhi habeenada kamida isagoo hurda nabigeena sallallahu alayhi wasallam laban malag baa u yimid way kaxeeyeen arrimo cajab badan iyo khalaa'iq ilaahay cadaaban oo midba si u cadaaban yahay ayaa nabiga la tusay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi habeenka waxyaalihi la tusay waxa kamid ah oo uu sii maray ruux inta qalka jeexdin lagaga bilaabo ilaa qadaadka la jeexayo haddana isha inta jeexdin laga bilaabo waxa la gaarsiinaya qadaadka haddana sanka inta jeexdin laga bilaabo qadaadka la gaarsiinaya dhanka kala hadana loo gudbaya sidii oo kala lagu sameeynaya inta dhankan la jeexayo oo lagu maqan yahay ayaa dhankani bogsoonaya markaas hadana loo soo noqonaya sidii lagu sameeynaya dhankana bogsoonaya kii kala lagu noqonaya sida lagu sameeynaya ruux sida u cadaaban buu nabigu maray salawaatu rabbi wa salaam alayhi habeenka isaga labadii malagay waday buu weydiiyay war muxuu ahaa kani warkan sidan u cadaabayni muxuu ahaa waxay ku yiraahdeen وروح subaxdii intuu soo kalaho subaxdii buu gurigiisa ka soo baxaa kadibna been buu sheegaa beentu sheegay baa waxay gaadhaa jihooyinka gaadha afarti jihay u kala fidaa sidaas loo cadaabayaa u fiirso waaga nabigu sallallahu alayhi wasallam waxyigu dagayay ruuxa beenta sheega beenta qaabka uu u faafinaya qaab bidaa'iya buu ahaan jiray dad buu u sheegayaa dadkii baa sii qaadaya kuwa kale u sii sheegayaan qaab bidaa'iya bay ahayd maanta soo fiirsa xaalku soo uga bedelay adduunku iyo dhow wuxuu noqday tuulo la wada degan yahay wasaa'ilul i'laamkii baa isdaba maraya darafka adduunka wixii hadda ka dhacay darafka kalu yaala been buu saaka sheegaya ama maanta sheegaya ama caawa sheegaya social media ku tuuraya malaayiin baa daawanaysa telefishinadu galinaya malaayiin baa daawanaysa idaacaduhu ka sheegaya malaayiin baa daawanaysa beentiisiba aafaaqda iyo jihaadka kala gaadhay sidaas daraadeed qoliyuhu nabigu ka sheekeynayay buu kamid yahay salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa laga yaabaa ruuxaasi inuusan qarad iyo ujeedaba lahayn كلية ماد إنه لجدي ضدك إنه ما ويليه أما الدن حن أو خبيثة إنه ليه ساس درادد مسهلنا بنت إسكيلال هذا إلهي أكتي سوى كربت هذا آخر هذا أضنينيس هذا الدون كاجا أضنينيسه هذا بدباد ربطه بنت إسكيلال رنتنا كود دال ودردارنك ربك تبارك وتعالى ودردارنك الرسول كاجا محمد صلوات ربي والسلام عليه
waxa uu keenaya iimaanka kugu jira iyo dhaqanka laga rabo waxa uu keenaya waay saas daraadeed ruux walba ilaahay ka baqo hana la iska ilaaliyo beentan shaqada laga dhigtay rasuulkeenu wuxuu inoo warramay sallallahu alayhi wasallam zamanka aakhirkiisa marka adduunku isbedelka ku dhaco oo qiyaamadu soo dhowdahay oo wixii wanaagsanaa isbedelo oo mujtamacaadku fasaadaan wuxuu rasuulku sheegay sallallahu alayhi wasallam isbedelada iimaan doona inay kamid tahay beenaalaha in la rumaysan doono kii run lowga ahaana in la beenin doono kii khaa'inka ahaa in la aamini midka aaminka ana in khayaano lagu xukumiyo khaa'in weeyaa la leeyahay nabigu wuxuu sheegay sallallahu alayhi wasallam isbedelkaasi inuu adduunka ku dhici doono qaybo kamidana haddaynu la noolahay nacam beenaalihii waa ammaanay yahay waa loo tahniyeedeynayaa waa loo qoslayaa lama qoonsanayo lagama xajiimoonayo khaainkii waa siyaasi waa madax waa xubin baarlamaan waa madaxweyne waa khaa'in shacabkii baa ku daba safan oo shacabka u garaacay ayagii baa codkoodii siinaya wayna ogyihiin inuu beenala khaa'inaya mawaasiintii isbadash isrogti kii runta sheegahayna waxa uu run kasta haduu sheego waxa la leeyahay kaasi waxa ma kala ogaa waa ka dhacsan adduunkii nabigu ka warramay baan joognaa salawaatu rabbi wasalaamu calayh laakiin si kasto adduunku u fasaado isu bedelo mabda'a quraanka iyo sunnadu ka warrameen oo runtu inay fiican tahay laguna badbaadayo beentina xunto lagu halaagsamayo marna isma bedelayso mu'minkuna taasa la doonaya inuu iltizaamo ama siyaasada ku jiro ama ganacsi ha ku jiro ama xaalad kale ha ku jiro ittaqillah rabbiga ka ba aakhiradaadana ilaasho